السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضوية كسر دواده وروحنا عالم كذي كهيني إذا لهان تيمبا ميلك السوتوكتان هبين وناكسن ورك عالم هو حقود الرون دونالد ترامب ولا دعوي حصلها بدأ جرينلاند يو ورك سومالان يو صوماليا هذان دي كوب لابا ورك وحقود الرون ورك حقوق آدمها اللو يقانو ACLU ayaa dacwad ka gudbiyay dawladda Donald Trump iyagoo ku eedeeyay xadgudubyo iyo cunsuriyad ay ku sameeyeen bulshooyinka Soomaalida iyo Latino ee Minnesota inta ay socdaan hawlgallada socdaalka. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Denmark wuxuu cadeeyay inay jiraan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya Mareykanka iyo Denmark ku saabsan danaha Mareykanka ee Greenland. dalalka Yurub sida Faransiiska, Netherland, Estonia iyo kuwa kale ayaa ciidamo u diray Greenland si ay ugu jawaabaan xaaladda. Sidoo kale wararka Asia heshiis caalami ah oo badaha ah heshiis caalami ah oo lagu magacaabo High Seas Treaty kaasoo siinaya badaha caalamiga ah sharciyo ilaalin ah ayaa dhaqangalaya 17 Janaayo 2026. heshiiskan waxaa saxeexay in ka badan 140 dawladood. sidoo kale baasaboorka Soomaaliya ayaa noqday kan ugu liita ee kaalmaha ugu hooseeya ka galay adduunka sida ay sheegtay mareegtada baasaboorka ee Integas. Soomaaliya waxay ka mid tahay 5 wadan ee ugu darajada hooseeya adduunka waxaana liiska ka hooseeya oo kaliya 3 wadan. darajadan hoose waxay ka dhigan tahay in muwaadiniinta Soomaaliga ahi uu ka xidhan yahay 80 dunida inteeda kale iyadoo in ka badan 160 wadan ay shuruud adag ka dhigaan faylasha la soo codsado oo inta badan ay adag tahay in la helo. caqabadaha ugu waaweyn ee curyaamiyey awoodda baasaboorka waxaa ka mid ah kalsooni darrada dhinaca amniga iyo nidaamka socdaalka oo dalal badani u arkaan inuu yahay mid aan la isku halleyn karin. sidoo kale wararka naga soo gaadhaya Somaliland ayaa shacabka Somaliland ayaa waxay isugu soo baxeen bartamaha magaalada oo loo yaqaano Khayryada halkaasoo ka dhigaan caawa wacdaro aad u waaweyn oo la yiraahdo celebration afka qalaad. shacabka ayaa waxay halka kala haayeen imaarad ha jiro ha joogo ha noolaado. dadka qaar marka su'aalaad weydiinayso waxay leeyihiin imaaraadku waa kii indhaha caalamka na tusay. sidoo kale waa wadankii ugu horeeyay ee namaal gashada. dadka ayaa aad shucuurtooda u kacsaneed caawa bal la yar daawado waa kuwane. sidoo kale fanaaniintii Muqdisho heesa soo qaaday maalintii dhaweyd fanaaniinta Soomaaliland qaar kamid oo lagu weydiiyay Khayryada wuxuu jawaabaa ka bixiyay bal sida ayagana aan yar daawane leeyahay abidkiin bay idinka halkan isa soo gaarsiiyay idinka cadawga jabiyay maantana waxa leeyahay taadhe maxaynu kaga dhigaynaa hinjiyay aanu gaarsiiyay idinka cadawga jabiyay maantana waxa leeyahay taadhe maxaynu kaga dhigaynaa hinjiyay anigu heesta aqoonsigana waan kaga soo tuuray asan jabaada daw arkay marka cidii Soomaaliland oo kama kaftano cidina soo faragashatana waxaan leenahay dabkaad kulaashad leedahay soo soco cadawgeedu ha jabo. waxaan leeyahay maanta dareenkayga lama soo koobi karo ما شاء الله دي اعترافكنا ونتابعنا qabashadin bay noo dhimantay iyo guuli waaweyn oka dhinaca kale maalmaha fanaaniinta xamar jooga heesay soo dirayaan ay ku maagayeen fanaaniinta reer Soomaaliland faranta way go'doon maxay tahay horta de hees waxay ahaydna looma tilmaamaya dad Soomaaliland darnaa sida kiniinka lagu qoray saddexda waqti. sidoo kale caawa waxaan ku guul jirnaa wali celebration ka socday ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliland oo joogay magaalada Hargeysa ayaa
dareenkooda ka muujiyey xorriyadday heleen iyo imaaraadka caawa oo loo dabaaldegayay bal yaro daawada inamadeen waxay leeyihiin wax weyn oo aynu in badan sugayno weeye oo tacab badanna somalilan ay u soo geliyeen mujaahidiintii annaguna halkii kuwii hore ay soo gaadhsiiyeen baanu ka sii haynaa dadaalka iyo maaragtana midho dhalka ee salamtii un baana oo qaranka sidii u ilaalinaysaa dee waanan ku faraxsanno dadka koowaad wuxuu qabanayo aqoonsigu annagoo ciidankaaba kow ka haba marka bal wax kaleba aan la odhan salarigii ciidanka keliyaataaba korreeyaba marka wallaahi waa waxaan la soo koobi karahayn caawa ninkii ilaahay soo gaadhsiiyey raggii hore waddanka u soo halgamay haddii caawa noolaan lahaayeen dee farxadaan la soo koobi karin bay qiri lahaayeen dadaalkoodii oo midho dhaleen arki lahaayeen alxamdulilah rabbilcaalamiin daawadayaal war waxaan caawa caalamkeeda ka haynay gudayo dibidba waa naga intaa tan iyo intaan dib u kulmayno habeen wanaagsan subscribe-ta like share please and please channelkan bad iyo berri kor u qaada waa channelkiinnii bye